Soomaali hadduu ilaahay kaa adeejiyo waa ku dhamaatay ilaahay baa kaa reebi kara. Waxaan idiin soo gudbinaynaa ninkii Soomaali cowboy ahaa oo laga daba qaatay Soomaalida oo dhan ka daba qaadatay. Intii dhaliilsanayd ee mucaaradsaneyd ma sheegayo inta taageersanayd ee isaga difaaciisa kama wado. Intii laakiin ninkan mucaaradsaneyd ee ka soo horjeeday waa laga daba qaatay. waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in nin ay hadda ka hor sawir wada galeen oo page-kiisa Facebook soo dhigay in la soo qaato waaba la soo helay. Ninkaas waxaa la sheegay in uu yahay kooxaha qoomuluudka inuu ka mid yahay yaa la sheegay. qoraalka uu sawirkaasi uu soo raaciyay qaybta hoose ee comment uu soo dhigayna walaac hor loogu ku abuuray Soomaalida. ninkii waxaa la leeyahay meel uu ku harsado iyo meel uu galu leeyahay. Soomaalida isaga isku taabtay konton fuusto oo midba midda kale ay ka daran tahay ee loo riixayaa maanta. meel uu galu leeyahay ninkii Cabdi Iftiin ahaa ama Soomaali cowboy saxaabadu taqaanaan. waxaan marka aan isbarbardhig markaas ku samayn doonaa ninkan fuustada loo riixayo dad badan oo waxaa jiro waxa hadda isaga lagu eedeynayo ama sameeyay ama ka badanba sameeyay. laakiin kuwa isla fuustada riixayo agtooda sumcad ay kala yihiin. yani cadaalada loo baahan mararka qaarkood ma aha inaan iska noqono dameeri dhaan raacda meesha hadba naloo jeediyo iska aadna ma aha. waa inaan wax miisaami karno. marka waxaan idiin soo gudbinayaa shakhsiyaadkaas Soomaalida maanta ay ku faanayaan sumcadda leh isla sameeyay waxa ninkan lagu eedeynayo tuhun lagu tuhmay. ninkan hadda wax lagu haysto ma jiro waa iska tuhun iyo nin noocaas ah soo dhigay waxyaabo noocaas ah. marka waan eegi doonaa. sidoo kale ninkii Trump ahaa oo Soomaalida ku qafiifay mar kale ayuu Soomaalida hadal la yaabtay oo fajac ku noqday uu soo gudbiyay. Trump marka waxa la leeyahay warniyow ninkan caawa hadduu wadna xanuun u dhinto xataa Soomaaliya inay disho baa loo fahmi karaa loo qaadan doonaa. Trump dhag haddii laga qabto Soomaaliya uu leeyahay. Soomaaliya qof jidka mar hadduu salaamo Soomaali maanta uu leeyahay. marka ninkii Trump ahaa Soomaalidii meel uu ka galo oo uu ka harsado ayuu leeyahay. waxaan idiin soo gudbin doonaa si guud wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaalida Minneapolis. soo dhawaada muuqaalkan la yigare sina shirkare oo nagu soo biir